halkaan kadibna muuqaal ka doob gaarigan adigoo si fiican u muujinaya magaca shirkadda ama kaga hadlaaya. shirkadda G-Fragrance waxay soo bandhigtay tartan fudud oo qof kasta oo ku dhiirigelinaya inuu ka dago muuqaal gaariga shirkadda magacyada logadada ku xardhan iyadoo loo ballan qaaday in qofkii helo views ama hadhaynta ugu badan uu qaadan doona abaalmarin. adiguna ku guuleysatay lacag $200 ah. taa beddelkeeda shirkadda waxay helaysaa xayeysiis bilaasha 100 qof ayaa si lacag la'aan u xayeysiinaya astaanta shirkadda iyagoo raadinaya abaalmarinta hal qof la siinayo qof walba wuxuu rajeynayaa inuu isaga noqdo guuleysaha. Saamaynta algorithm-ka marka hashtag shirkadda ay hal mar si wadajir u isticmaalaan dad badan platformyada sida TikTok iyo Facebook waxay u tixgelinayaan inuu yahay topic ama trend taagan. taas waxay keenaysaa in platformku uu muuqaaladaas oo dhan uu tuso ama u bandhigo dad badan oo cusub. xeeladan oo kale waxaa si la yaab leh u isticmaala shirkadda Starbucks markaad qaxwada ama kafeega iibsato waxay koob ku dul qoran magacaaga qof kasta uu arka magaciisa oo koob ku qoran wuxuu sawir ka qaadaya koobka isagoo soo dhigaya baraha bulshada. Starbucks waxay taas ku heshaa malaayiin xayeysiis bilaasha maalin kasta iyadoo $1 ka bixin. shirkadda G-Fragrance ayaa la imaaday hal abuurkan aadka u xiisaha badan taasoo suurtagelinaysa in dad badan ay arkaan astaanta iyo magaca shirkadda